kolkeenu dirnay dhiig badan daato sokeeyo coloobo dariskii kala guuro oo diintii eebbi iyo dadaalkii la dhaafo dunyadiina cararto Soomaaliyeed si kastoo dhiig u daato waxa weeye geeri ay u timaado dulmi la isugu dagaalo iyo waxaan dan ahayn waxaad ogaataan siyaasiyiintu inay yihiin kuwa aysan dhibtu gaarin oo kolka ay heshiiyaan isu dhoola cadaynaya isu qoslaya asa ahaatee dhibtu waxay u taallaa walwalkuna u yaallaa hooyadii markaa goobtaa joogtay oo ka fakaraysa saygeedii iyo ninkeedii halka uu xaalkiisu yahay iyo sida ay u kafmi lahayd iyadoo aan cidina garab u noqonayn tan gabar ee walaalkeed meydkiisa arkaysa iyo dhiigga daadanaya ama wiilkeedii walaac iyo walwal iyo walbahaaran dhammaan markaa waa u bilaaban taasoo idil waxa ka daran oo ka sii weyn inuu yidhi xabiibkeenna suuban maxamed sala allahu calayhi wasalam haddii laba qof oo muslima ay isdilaan kan la dilay iyo kan wax dilay labaduba waa ahlunaar kan la dilay iyo kan wax dilay labaduba waa ahlunaar bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu giddiye giblahaan soomaaliweyn meel baa dunida ka joogtaan allah weyn waxaan nooga rajaynayaa caafimaad iyo cibaado suuban mid kastoo muraad leh eebbahay waxaan uga rajaynaya inuu muraadkiisa mid khayr ka dhigo kuwa xanuunsanna caafimaad taama siiyo kuwa geeriyooday jannadii udgoonayd hooy uga yeelo kuwa laga geeriyoodana samir iyo iimaan ka siiyo kuwa dhasha haysta allah weyn dhasha u barakeeyo kuwa dhal sugayana dhal barakaysan ha siiyo lama horaan dalkeenni iyo nabada iyo dadkeenna oo midaysanna allah weyn waan weydiisanayo haddaba barnaamijkan caawa ka hadlaya waxa weeye dareen xumada bulshadeenna iyo dhiigga sokeeye daadanaya xamar hadmay xaqiiqda ogan markasta mid laga qaxo miyaysan waa hooyadii Soomaaliyeed mudnayn in iyadu ay noqoto hoy la harsado oo aan hawl iyo hagardaamo mudnayn asaatay inta aan barnaamijka guda gal kuwii hore noola joogay barakoobo iyo fariista gacalow kuwii dib naga soo biiri doonaa rabbaayad barakeeyo subscribe tasida sama iyo tilmaamay waxay dadku horeen ayaana alaab bulshada jacayl la sii wadaagno idinkana waxay noo tahay dhiirigelin ag joogeen haddaba barnaamijkan caawa ka hadlaya waxa weeye xaalka xamar iyo waxa aysan mudnayn waxaan doonayaa inaan idinla wadaago barnaamij xamartii shalay iyo caawa saytay iyo dadka Soomaaliyeed ma aha kuwa wada duleysane inta aan damiirka lahayn inay dib u xasuustaan waxa aan la horay wabaka xaaji banaadir oo aad wada garanaysaan abwaan Soomaaliyeed fanaan Soomaaliyeed aalaana bulshada Soomaaliyeed u soo bandhiga wax dan waa iyo daryeel wax dibindaabyo aanu ahayn oo horseed oo dalkooda xamarna oday waa aalaaba jecel amnigeeda iyo nolosheeda lama tilmaami karo waxyaabaha Soomaalidu tilmaamay kunka waa bestis ninkii ilaha weeye hase ahaatee maanta way ka duwan tahay waa barnaamij aan ku ifinayo xamartii shalay iyo markay baala galeen ka ahayd dadkii ilaawo dib baan idin xasuusin billahi qabiilo shurugaaga hakuraaco shartaada شيطان نات وحبدا من شرحات ومبانا شي حقيقة واي قبيل كو تلمام يا يولي قبيل لو شركة وح فائدة لو كينا يا ماها مid kugu eego ku raacdaha shaydaan wax ma dhaatay dabeetana waxa arkaysaa bilicda idin muuqato waad ugu dhaaranaysaan boolaanta bahala galeenta waa xamar iyo xaalkeedu markaas sidoo ah caawisa ka duwan oo bilicdeeda leeyahay dad baa se doonaya dulinimadii iyo halka in lagu celiyo intii damiir lehse way ka dhidhii dibna u doona maayaan inay dulinimada dib ugu noqdaan شعبي واسكو توسن او شغل كيس خبسهايو شانتي سلاد دكايو شكي ناس كلا قادو أريغا كشقيسي معناها قبيالة وحو تلماما يا شعب كوين اسكو توسنا وإلهي كوما درناده شانتي سلاد تكيني ووحوي عشور لبحين ايو دلكو هامد عين قرحون أساها شيطان وكلا إردية إيه قبيلة قديد يقول في عن مودين أنا عرير شلوقو أنا عرير شبعو أنا عرير شوكولاتي أنا رير هبل إيه أنا رير هبل إيه أنا رير هبل waxay keentay waan aragnaa weey ujeedka iyo dulinimada ay nabaday iyo siday dib nooga dhigtay dalalka dunida yaala reer shactaroole ana reer shabshablow ana reer shuluqlow ana shaal dangalow
inaa loo kala sheero oo shafka leeska garaaco adigaa ka shaqaysay kolkaad aragto xamar sida ay markaa tahay runtii waad naxaysaa iyo waxaad leedahay dalka iyaga dhibaatadaa uu soo maray inaan cashar ku qaadanay ahay oo masaakiin iyo kuwa aan waxa weeye dhimudnaynba iyo maatoba wax qalbigooda ka haraya maaha haddaba halkaas aynu doonayna inay noo noqoto cashar aynu wax ku qaadano iyo inaynu ka digno dib ugu noqoshada daryeel xumada ah haddii aynu maanta jiraan bulsho soomaaliyeed oo u xiise qabtaa inaan halkaa ku noqono waa doqonnimo iyo damiir aada u liita bil rabadaan bukaanadu badan yihiin karono loo dhimanayo waxa weeye xaalado sokeeyo oo xume ay jiraan cadow soomaaliyeed tiri aan lagu goobi karin inaynu isu muuqanno waa dulinimo tii u sarraysay iyo soomaaliya duco u baahan shiinka aan ka hadlaayo sheeka kii u mudaayo shangaani soo arag maanta shangaani I'm sorry shangaani markaad arkayso shalay toole halkaa guryaha markaa la degan yahay iyo guryaha aan la deganayn ee dunsana hoobiyaha loo adeegsaday waxa badan kuwa aan la deganayn kolley maanta muuqaalkeedu sidaa wuu ka duwan yahay oo waa meel bilicdeeda iyo quruxdeeda la wayaabay shisheeyihii sokeeye way isugu yimaadeen oo xataa carab qaxaysa oo qaxootiyaa joogta zaade dad baa doonaya inay ka qaxaan shangaani soo arag maanta bondheere soo arag maanta wardhiigle soo arag maanta tiyaatar soo arag maanta muqdisho I'm sorry bondheere iyo wardhiigle iyo tiyaatar maanta caasimadaha adduunka ee la tartami karaan bilicda iyo muuqa ka muuqda xeebaheenii qurxoonaa bilicdoodii baa soo baxday oo dadku waa kuwo u wada damaashaa taga dhalintooduna marka ay soo sawirto dareen waxa ku gelaya hadmaad xamar tagtaa dad baase xaqiiqdii xaaladda aan fahansanay muqdisho I'm sorry muqdisho waa caasimadda soomaaliyeed waana hooyada soomaaliyeed haddii ay horumarto oo amnigeedu shaqeeyo dhammaan geyga soomaaliyeed deegaanadiisu waa wada horumareen haddii ay dulinimo iyo dariiqii shalay dib ugu noqotose waa mid xaalkeedu keliya ku ekaanan iyada bulshada soomaaliyeedna saamaan ku yeelanaysa maadaama madax meel la taabto uu jirka ugu sarreeyo muqdishona waa madaxii bulshada soomaaliyeed tiyaatar I'm sorry tiyaatar I'm sorry masrax I'm sorry fanaanin I'm sorry Soomaaliya I'm sorry sidaad arkaysaan waxaad daawanaysaan maaha bahalogaleen iyo meel booraan oo bahaluhu ay ku heesaan waa mar xaaladdaas ay xamar soo martay waa mar dagaal sokeeye ka bilaabmay oo lagu kala qaxay waa mar qaxooti la noqdo dumarkii dideen qaar carab u tahriibeen qaarna cajab u tahriibeen qaarna dal gaala yimaadeen waa mar dhasheenii dullowday oo iyadii isdiiratay waa mar isbaaradu baddaa tahay waa mar aan dahabkii lagu xaragoon kareen oo dariiqii la isku dilayo waa mar dhasheenii beerka lagala baxaayo tahriib kolay ahaato kuwo kaleetana qurbe ku dulaysan yihiin waa mar iska daa dumar oo la duleeyee raggii naasa samaysteen haddaba intaasoo dulinimo ah iyo kuwo kale aan la tiri karin cadad iyo tiro lagu koobi karin ayaanu ka dhaxalnay qurunka iyo qabyaaladda iyo burburka bulshadeenna ka warrama dadka maanta u sacabtumaya oo xaalkoodu sidaas yahay هاي معلم عيدك ورشاول عيد haddaba ilaahay caqli buu ina siiyey afalaa tacqiluun afalaa tufakiruun war miyaan wax lagu qaadanayn wixii shalay dhacay xamarey adiga maxaad dhibta ku fashaa iyo dhiigga walaalkaa hargeysa maanta haddii xabadi ka dhacdo ama wiil xanaaqo ama siyaasi isqabto colaadeedu mid sii horeysa maaha oo waa la demiyaa boosaaso sidaas sideeda galkacyo sidaas sideeda kismaayo sidaas sideeda dhammaan geyiga soomaaliyeed degaan walba oo tilmaanto sidaas sideeda hase ahaatee xamar maxaa ka dhigay bahalogaleen iyo meel dhib jecel
ورميان الحمر لو فكر إن دش يدلان كي مساكين تكون نول ورميان لو فكر إن هو يدا يقول كردن يرى ده هي كان دقول كهي كان عندها لهين ورميان دتك إسكتش مو تناسل وحان حبط أهين باقون حبدي محي حكمة وكيانتي انت هسي حمر كده عيسي مروحة أهيد عاصمة أفريقيا ما أنت نواتن هو سيسا هيركا واحد عندك سو حبد معها سو ديك سو كيا معها هدي حبدي حير كينيسو هي حيلت في عن محل هيا طريق قال دقايق كا طريق النقضي وكا شقيسانيا او ديبتا بديا waa hooyadiisoo isbitaalka u socotay waa walaashiisoo umulahayd in isbaaro la dhigto mooyee si kale tanaasul xamar miyaysan aqoon war Soomaalidii hore si kasta isu diido iyo si kasta isu dagaasho kuwa shisheeye u adeega ma ahayn maanta waxa dibadda banaanka inay inoo saaraan rabo dadkeena iyo dalkeena ka qaxiyaan waa shisheeye kalkaal qabiilku awrkacsanaya qaranka Soomaaliyeed waxa loo liicinayaana wax kale ma aha waa dana gaar iyo shisheeyo loo adeegayo maxay isku soo aadiyay Kenyanu hayno badeeni damaceed iyadoo dhamaan in maanta xamar qax iyo qayle iyo magaranaysaa ay qabiil laga bilaabo maxay isku soo aadiyay iyadoo ognahay colaadda Carabi iyo Cajab inuu ku hayaan maanta maxaa keenay in qabiilada lagu horkacsado oo meesha aan la horeyn iyo xamar la beegsado oo waliba ficilkaas ay sameeyaan kuwii shalay dalka maamulayay oo madaxdooda ahaa maxaa keenay wadadka Soomaaliyeed waxaan u sheegay dhasha iyo dhalinyarada iyo dumarka waxaan u sheegay wax garadka iyo cuqaasha waxaan u sheegay war qabiil wuxuu yahay iyo qorankiisa waa naqaan yaan leedin ku awrkacsan danihiina doona oo dhiiga daadanaya idinku dulinimo idin yahay dadkiina iyo dalkiina nabad ku jooga مسقح بالله حيسا قبا waxa qayla dhaamay ee tahriib magaranaysaayay iyagoo soo maray dalkooda inuu burburo doonay miyana damir lahayn ee buuqa kicinaya ee shaydaan amalkiisa iyo Facebook dagaal ba dhaxay xamar ba ololeysa maxaa aqliyeed ku haysa inta wax dhaamo dareenkiina milyan lahayn war hadii guuga ku kordhaa gabo mooyee ku tarin garaad iyo waaya arag ilaa wax ma dhaantay انت ساد قوري ودتي ما حد كفايدي واحد سلعه يا سكراده يا دشادي يا دلانكاغي يا دمركاغي يا دلنتادي dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegay oo waliba reer koonfur u sheegay reer banaadir u sheegay abil rabada waxaan arkayay nin ku soo qoray Facebook reer xamarka soo qaxay baan soo dhaweynaa dekadaha iyo airport baan u sii fariisanayna deegaan habal ku soo socda idinku inaad qaxdaan iyo inaad waalidiintiin qaxisaan iyo inaad dadka Soomaaliyeed qaxisaan ma hay qol dhaamayada ahayn xaalad iyo xal aan sida ahayn meedan garanay farmaajo dalkan male baarlamaanka dadka jooga dalkan male innaga la shacabka le bariba mid walba tagaya oo danaysanaya nin kasta ciidan baa ku hareeraysa maxaafid iyo mucaarad lama horaan innaga inoo tahay dalkeena inaan ilaashano oo aan la isku keen dirin taa waa inaad garataan waxaadan faa'iido ka heleen oo dulinimadiisa aad og tahay iyo dhibta ay kuu keentay inaad maanta dan moodo oo inaad ka didaa waxaad arkaysaa gabar qurbaha joogta reer gaal bay soo baridaa ilmaheedii waxaa laga yaabaa inaysan geen meelaha magaranaysaay oo la yiri ma dhashaadii dhallaankaaga guriga la joog haddii la doono laga kaxaysta dad Soomaaliyeed oo masaakiin oo deegaankoodii iyo dalkoodii joogay inay ololiso doonaysa inay qaxiso doonaysa wayna soo qaxday oo qurbay joogta waxaad arkaysaa mid dulaysan oo qurbaha ku liita oo wuxuu leeyahay dalku ha gubto abaha gubay adigu gubo maxaad u gubinaysaa islaanta maskiinada ah ee hooyada ah meel u qaxda aan ahayn oo buushka ugu ordaysa kuwii hore buushashkoodii waxa lagu hayo iyo waxa lagu tiro toon aan lahayn war dadka Soomaaliyeed waxa leeyahay war dareenkii iyo damiirkii iyo dadnimadeeni sidaa way ka wacnay dadam qado han leh baan ahayn qab iyo qowl wacan been lahayn maanta se waxaad moodaa dadkii dad dulaysan oo damiirkii ka dhintay noqdeen
ilmaha yarka meeshu dabku kaga dhaco oo ku gubto wuu ka cararaa idinku waxaad ku karaama seegaysaan on horumar iyo heer waxaan idin noqonayn maxaad ku falaysaan weliba reer xamar baan la hadlayaa war reer muqdisho xilli iyo xaalad xilliga kan ka liitaad soo marteen oo gabadha yarta aysan magaalada xargoon karin oo isbaaro taal cabaar markaa socotaba isbaaro taal hogaamiye kooxeed iyo colaad sokeeye dahab aadan xidhan karin kufsigu baddaa yahay xabadii cirka loo rido adoon isku ogeyn madaxa kaaga dhacayso guriga kugu soo galayso tiiba maanta laydinla rabaa amniga iyo dantuna waxa weeye waa waxaan isurayn wardala kan ilaahay nabad haynoo ka dhigo laakiin ficil baa loo baahan yahay xamarow maxaa dadka idinka soocay intiina samaha iyo saamaynta badan ee soomaalinimada jecel baa badane maxaa muujiyey waxa kan dulaysanee dib idiin dhigaya ee dalka gubaya maxaa muujiyey waad ka badan tihiin maad ka muuqataan waxaan nuxurkii ku xidhay naxwo hadalkaygii war bil rabadaan baa la joogaa dadku daryeel daawo ma haystaan oo corona jira colaad sokeeye mid laga soo kabta maahe kurbadeenna badan weli ogna welina dan baanu moodaynaa qax iyo qabyaalad iyo qurankii waxa weeye aanu arkaynay waa dullinimo ka dhiidhiyoo diida dantiina weeyaan danta soomaali weeyaan nin xalaal ku dhashaa xildhibaa baa layidhi ninka ku fekeraya hooyo soomaaliyeed inuu qaxiyo ninka ku fekeraya dhiig walaalkiisoo islaam oo soomaaliyeed inuu daadiyo dee walad xalaal buusan ahayn walad xalaalnimaduna maaha qofku inuu xalaal ku dhashay qofku waa inuu xaaraan ka badbaaday shisheeyo cunno soo siiyey iyo sokeeyo wax ka qaada waa inuu ka badbaaday hadduu qofku taa bartana dee lama dabiibi karo bil rabadaan baa la joogaa cibaado iyo camal khayr in la doono weeye dhiig sokeeye faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa weynu naqaan waa wax reebano ee bahay uusan ku jeclaanayn cadow baa ina fiirinaya intaasaynu isgubaynay war caqligu ha shaqeeyo dalka iyo dadkaba dan u doona dadkii waxay wada noqdeen halkaa iyo dhuunta aakhiraba laga fekeri maayaba labada maalmood wixii la cuni lahaa baa laga fekeriya midaan waxba ku haysanoo gaaja haysan wuxuu ku leeyahay adeerka shalagu wax ku taro waa adigii gaajoonayey qabri 2 mitir keligaa ku sugaayay qof walbana sugaayay ilaahay bulshada Soomaaliyeed waxaan uga baryaa dareenkooda inuu ka dhigo mid damiir laho diinta iyo waxa weeye waxaan la horeen xambaarsan oo dadkooda la jeclaada nabad iyo nolol iyo wanaag u horseeda barnaamijkan oo kale inta dib ugu kulmayno warsani war khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu